وإن الله نهي ولا ليال إسديستا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهاي إسليننا وهاي حسوقنا وهاي سقمادنا وإنت آخر اللي جارين أدونك يسكو عقابنا باقي اللبان وياهي ولا لهن إنكستو يسكو قلدمين والشيطان كدح شقيي حدنا هدي ودبدعو حلو ما نغا سارن وايو waxaan naga dhaxeeyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina ka dhaxeysiyay oo dhul iyo dhalasho iyo diin iyo aqeeda ah ayaa waxa ay keenayaan in markii dhibka noocaas oo kala u dhaco aan la isku eegan ee la isu gurmado sida darteed marakan oo kale waa markii la tadbiiqin lahaa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تصالها مؤمنين تواسدي هل جيرو كلاو haddii xubin ay xanuunsato inta kale ee jirka kamid ah qandho iyo soo jeed iyo dhafar ay ugu barordiiqayaan marka waa la xanuunsanahay wixii dhacay ehelkeena qaxay waa la xanuunsanahay inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawac rabbi u boogadhayo xilka nasaarana waxa uu yahay inaan u gurmano dadka geedaha hoostooda fadhiya waxa weeye gabadanadu ay hayso aan haysanin hooy iyo hu ay xirtaan oo ay ka hoos galaan dhaxanta inaynu u gurmano oo dal iyo dibad la isugu tago oo wax alla wixii la gaarsiin karo aan la yaraysanin ayaan soo jeedinaynaa dadka xoogaa caadifada ay hayso ka gubanaya dagaalka dhacay ee kala raacsan labada reer ee meesha isku laayay waxaan leenahay Ilaahay ka cabsada subhanahu wa ta'ala oo aakhiradiina ku iibsanina dhiig muslim oo xaq darra ku daadisaan oo ay hal qof dhiigiisa oo la daadiyo ayaa Ilaahay waxa uu ku sheegay inuu la mid yahay adduunka oo dhan dhiigiisa inuu daadiye إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفكي الدلا هل نف وحق درك الدلا الدون كون سوى كتخلصي ولا مديه هل قفكي النورينا دوني دور النوريه ولا مديه سيدا درتات دلك إنه قدر نورينتا وإنه أجر منه ولا لهن وحي أتكون بحين لهيدين أما أتكون جيسان لهيدين علاد إن يسيس عطه وهنا الضوء ما أنت الدون كمرة هي جيسيال بري لو بحسن دونه الدون كان لقول دافل لها kuwa hadda soo kobcay ee soo korayay ee dayacan aynu ku badbaadin noloshooda aynu maalin qada ku siino aan habeen maxaan ku dhaxanta kaga jirsiino aynu ugu dhisno maxaa la yiraahdaa ii sheeg aqal ay galaan oo aynu xoogeena dhinaca aynu u jeedino ma joogno waana la soo dhaafay mustawaheenina ma aha iyadoo adduunku maalinka maanta lagu tartabayo dhaqaale iyo ana ka horeeya inaynu dhexdeena iska leeyno sida darteed xilliga aqligu u shaqeyn lahaa caqiidadu ayna dhaqaaqi lahayd والله المستعان علمي يدينتا نلو شيغايو aynu tadbiiqin lahayn ayaa la joogaa shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibad waxaan ugu baaqaynaa gurmadkaas caamka ah ee loogu jiro walaalahaas meesha ku dhibaataysan geedaha hoostooda inay nagala soo qayb qaataan qoysaska dhibaatoobay oo ay saameysay oo kala qaxay iyo kuwa ay saameynta tooska ku dhacday hay'adda hadma iyo wasaaradda arrimaha gudaha warbixintoodii waxay isugu keeneen inay gaarayaan 4200 ku dhawaad sidaa darteed waa la garan karaa inaysan ku filaan karin hal dad oo hal meel jooga aynu isugu tagno iyo inaynu daba qabno dagaalka isaga ah wajazaakumullahu khayran wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad